gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland u ciidiyo wadan injineer Faysal Cali Waraabe iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si wada jir ah ugu jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Gudoomiyaha xisbiga u ciid Faysal Cali Xuseen ayaa sheegay in cashuurtii laga soo qaaday dadka danyarta ah lagu laaluushay xildhibaanada xisbiyada mucaaradka uga soo baxay si ay ugu soo biiraan xisbiga talada haya kulmiye. doorashadii asxaabta gashay sida 2006 u galay kulmiye oo ciidan sameeynay isbahaysiga uu ka bedelo qabiil buu bedelay qabiil ayuu bedelay aniga Cabdiraxmaan ayuu laba xisbiyadu reer ma ahaane waa lagu wada jiraa beelaha reer Soomaaliya ayuu xagaradka laanta ku leeyahay dadka garasho gaabada lahaa laba noor isku reer isku kaytay wada maxay halkaas u maraya maanta waxaas oo dhan waxaan islahayn ha ka daba geynina wanaagii adduunka maqlay iyo shacbigeena niyada wanaagsan ee wada qabsaday ee footay si fiican u qoday in la yiraahdo war kuwaas Soomaaliya ma dhaanto waa kuwa iyagu hays durba haysta waxaan leenahay madaxweynaha lacagtii shacbiga islaanta tamaandada haystata hilibka iibinaysa ninka baabuurka wata ee wada haysan ee real taxation laga qaadayo islaanta aan haysan mas'uul haysan oo had haysan ee cashuurta laga qaadayo lacagtii ummadda masaakiinta ayaa maanta lagu iibsanayaa xildhibaanadii. gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa dhankiisa carabka ku dhuftay in xarig loogu hanjabayo xildhibaanada kulmiye ee ku biiray isbahaysiga mucaaradka. waxaa maqlayseen mudanayaal axsaabta mucaaradka ka soo baxay ama isbahaysiga oo yiri waxaanu taageeray xisbiga dawladda cid hadal haysa iyo mucaarad hadal haya iyo midna lama maqal waa garanaysaan tirada ka soo baxday ee public ku hadashay ama media la hadashay ee kulmiye ahayd ee tiri waxaanu taageeray isbahaysiga mucaaradka maalintii ka soo baxeen ilaa imaka xamba socota wala dacweynaya wala dhibaataynaya waloo hanjabaya arrimahaasina arrimo dalkan iyo dawladnimada midna ka fiican maaha aduu madaxweynuhu leeyahay kuwa mucaaradku xaq bay u leeyihiin meesha doonaan inay maraan kuwa kulmiyana xaq bay u leeyihiin meesha doonaan inay maraan waxa idin waliba xisbigiisii joogo laakiin hadduu isagoo bilaabay waana isku xuquuq u noqdaan oo waaba khalad laakiin hadduu yiraahdo kuwaygana kuwa xaga ka yimaadana waa okay wax dhibi ma jiro taasi suurto geli mayso wax la aqbali karayna maaha. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefishinka Universal, Hargeysa.